Hello, welcome back to our continuous lesson. Today is lesson 4 and we are going to learn how to make sentences using our previous vocabularies. And so kusoo dhawaada mar labaad casharadeen imtixaanaha maanta casharkeena afaraad waaye waxaana isbareynaa sida loo isticmaalo ereyada aan casharadii saddexaad iyo labaadka aan kusoo baranay sida kalimooyin lagu isticmaalo ama sidii kalimado isku xiriirsan loogu isticmaalo amal sentenceyo kalimado waaye insha Allah wax badan ay faa'iido doontiin u maleeyaa hadda wax badan rabtiin YouTube-keeda ku xirnaada notifications kana on ka dhigta insha Allah. Wish you all the best. Ereyga koowaad waa name. The first vocabulary is magac. My name is Ahmed waa kalimada koowaad. My name is Ahmed or my name is Abdi. My name is Halima and so forth. If you want to say your name in Somali, you will say magacayga waa Abdi. Magacayga waa Ahmed. Magacayga waa Peter and so on. That's the first vocabulary. Ereyga labaad waa age. Into Somali it is sanad or da'da. My age is 25 years old. My age is 25 years old. Da'daydu waa 25 sano jir. Da'daydu waa 25 sano jir. We will learn more about numbers and Somali pronunciation. Waxaan baran doonaa nambarada iyo dhawaaqa xarfaha Soomaaliga ama Ingiriisiga casharkeena shanaad oo soo socda insha Allah. Ereygeena saddexaad waxaa waayay country. Our third vocabulary is wadan. Country. Yes, I hope you got that one. My country is Kenya, Somalia, Ethiopia and so on. Mithaalo badan ayaa isticmaali kartaa. Wadankaygu or dalkaygu waa Kenya. Dalkaygu waa Kenya, Somalia, Ethiopia, Uganda and so on. My country is Kenya. Wadankaygu waa Kenya, Somalia, Ethiopia and so on. You can say wadankayda or dalkaygu. They are the same thing. My country is Kenya, Somalia, so on. My country is Kenya. The fourth one ama ereyga afaraad waa job. Shaqo. The fourth vocabulary is shaqo. Job. Shaqo. Job. In a sentence, kalimada marka laga dhigayo, your job is learning. Shaqadaada waa waxbarasho. Your job is learning. Shaqadaada waa waxbarasho. Your job is learning. Inshallah waxyaalo kale ayaan baranaynaa like cooking and so on. Ereyga shanaad waa teacher. Ma'alin. Our fifth vocabulary is ma'alin. The teacher is teaching.
The teacher is teaching. Macalinka ayaa wax baraya. Macalinka ayaa wax baraya. The teacher is teaching. Tan lixaad waa capital city. Capital city. The sixth vocabulary is caasimad ama magaalo madaxeed. Nairobi is the capital city of Kenya. Nairobi is the capital city of Kenya. Nairobi waa caasimada Kenya ama Nairobi waa magaalo madaxeedka Kenya. Nairobi is the capital city of Kenya. Nairobi is the capital city of Kenya. farqi ayaa u dhaxeeya city iyo capital city. City waxaa waaye magaalo, capital city na waa caasimad. Kan toddobaad waa hospital. 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 Isbitaal. Isbitaal. A hospital is a place for medical care. A hospital is a place for medical care. Isbitaalku waa goob daryeel caafimaad. Isbitaalku waa goob daryeel caafimaad. Isbitaalku waa goob daryeel caafimaad. A hospital is a place for medical care. Our today lesson will end there. Maanta cashirkeena halkaas ayaan ku ekeeneynaa ama ku soo koobeynaa ama ku dhameyneynaa. Many more are coming. We can't exhaust Somali vocabularies. Wax badan ayaa soo socda, ma dhameyni karno erayada Ingiriiska ama Soomaaliga maalmo gudahood. As time goes on, you will learn something and you will do more research by yourself. Waqtiga intuu sii socda wax baranayno, wax badan ayaan baran doontiin. Adinkana wixii oo baxthi ah sameynaysiin insha Allah waa kala faa'iideena. And as I said earlier, my English is the British English, not the American English. So if you are confused with my accent, maybe you do something on that. But I hope you are getting me right. And dhawaaqayda Ingiriiska maxaa waaye luqadda Britishka, American English mooho. Hadda igu yara wareertay waxa iga fahantay kulleyba. Hadda igu wareertana waxaan u maleynaa inta iga raali noqonaysid insha Allah. lesson keena shanaad waa nambarada. insha Allah casharadan soo socdo maxaan galeynaa nambarada, numbers. Our next lesson will be numbers. Yes, and the month, your bilaha.